Assalaamu calaykum. Ururada yihiin magac dheer dunida. Waxaan maanta halkaan kuugu soo gudbinayaa qaybtii koowaad warbixin ku saabsan qaar ka mid ah ururada yihiin magac dheer dunida. Qaybteena koowaad maanta waxaan ku soo qaadanaynaa G20 ama G20. G20 oo laga soo gaabiyay Group of 20 ayaa urur ay ku mideesan wasiirada arrimaha maaliyadda iyo madaxda bangiyada dhexe ee 19 wadan iyo midowga Yurub. Waxaana la aasaasay 1999. G20 waa 20ka dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Shirkoodu waa sanadle marba dawlad ayaa martigelida. Liiska dawladaha martigeliyana waa sida shaashada kaga muuqata. Shirkooda sanadlaha ah marba mowduuci marka taagan baa lagaga hadlaa. Tusaale sanadkan 2019 waxaa martigelisay dawladda Japan waxaana lagaga dooday arrimo ay ka mid yihiin isbedelka cimilada ee dunida, arrimaha Iran. Bilowgii ururkaani waxaa kulmi jiray wasiirada arrimaha maaliyadda iyo madaxda bangiyada dhexe 19 wadan iyo midowga Yurub, balse arrintaa waxay isbedeshay kadib hoos u dhicii dhaqaale dunida ka dhacay 2008 taas ku bedeshay inay kulmaan madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha dawladaha. Sanadka waxaa martigelisay dawladda Mareykanka. Kulankoodii ugu horreeyay waxay ku yeesheen magaalada Berlin 1999 kadib dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhacay bariga qaaradda Aasiya ka oo saameeyay wadamo badan oo dunida. 85% GDP-ga caalamka ayaa ka yimaada sidoo kale 3 meelood 2 meel dadka dunida waa iyaga. Sidoo kale waxaa jira G7 oo ah 7 dawladood oo xubin ka ah G20. G7 oo markiisii hore ahaa 8 dawladood ayaa hadda ah 7 dawladood waxaana meesha laga saaray wadanka Ruushka.